كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. كن شريكا في الدعوة، كن عطاء للإسلام، فلنكن نحن قدوة ننشر الدين السلام. waana xalqadii 26aad kuna soo dhawaada mar kale barnaamijka kulanka Shibli sheekh ku soo dhawo barnaamijka. shukran jazakallahu khair. su'aaluhu aad bay fara badan yihiin ayna soo weydiiyeen daawadayaasha ugu horeyn mid ugu horeysa waxa uu ku bilaabay assalaamu calaykum walaalaadayaan idin salaamaya dhammaan daadiyaha barnaamijka iyo sheekha waxaan rabbigay haynoo xifdiyo sheekha la dartii ayaan u jecelnahay rabbigay caafimaad iyo cimrigiisa ha u dheereeyo sida wanaagsan ee uu diinta inoogu bayaamiyo magacaygu waa bintu Cabdullaahi waxaan ku noolaa North America waxaan kamid ah dhalinta wax ka barata high schoolka marka waqtiga salaada duhurka la tukanayo xiisada ayaan ku jiraa waxaana suuragal ah inaan ka soo baxo 2:10 daqiiqo sheekh ma ku tukan karaa gurigeyga markaan dib ugu laabto. alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa calaa aalihi wa saxbihi wa amma bacd. marka koobaad allah ku jeclaado wixii khayran allah nagu kulmiyo. marka labaad salaadu waqtigay leedahay bilow iyo dhammaad buu leeyahay. waqtina waa xilliga ay soo gasho, waqtina waa xilliga ay baxdo. qofku hadduu shaqada iyo xiisadii ama casharkii kaga soo aado xilli ka mid ah intaa dhexdeeda uu ka soo bixi karo, waqtigaa uu soo baxaba salaada wuu tukan karaa, ama guriga ha noqoto ama goob shaqo iyo goob waxbarasho ha noqoto. salaadu hadday 5 saac soo gasho ama 11 oo ay 2 ama 3 baxayso, waqti kastoo ka mid muddadaas waa tukan kartaa. waa waajibku muwasaca wax yiraahdaan. waxa uu fiican waqtiga horaantiisa, inta kalena way bannaan tahay intaan waqtigu ka bixin ka dhamaanin. marka gabadhu waqtiga time-ka ay sheegtay ee waqtiga ay sheegtay ee wadanka ay joogtaan anigu ma kala garanayo, laakiin intaan cimilada westernka iyo galbeedka iyo bariga fog ka aqoonay xilliga kulaylaha duhur wuu joogaa waqtigaas xilli 2 duhurnimo la yiraahdo. casarka wuxuu soo galaa 5 galabnimo iyo 6 galabnimo iyo soo gala. waxaan isleeyahay Europe iyo North America ilaa Australia New Zealand ma kala duwana cimiladu, samarka iyo winterka, qaboobaha iyo kulaylaha. kulayluhu salaaduhu waxay soo galaan 1 iyo wixii ka dambeeya duhurku soo galaa. laakiin waxaan filayaa xilliga qaboobaha bay xilli 11 iyo 5 saac iyo meelaha intay soo galaan ba laga yaabaa 8 saac xilliyada loo gaaro in casar ba la gaaro. maghribkana 4 galabnimo la tukado, salaad subaxna 1 saac subaxnimo la tukado. maalintuba yar oo la quraacdo la qadeeyaba ayna ka badnayn, halka habeenku inta uusan ka badnayn xilliga kulaylaha ama samarka la yiraahdo. haddaba haddii ay qofku samar iyo winter midku doonay ha joogo, saacaday doonay salaaday doonay ku soo aadee bilowgii waqtiga ilaa dhammaadka inta u dhaxaysa, haddii uu ka dhamaanayo mashquulku oo ka gaari karto salaada waqtigeedii waad haleeshay. wixii ka soo haray waa 2 mid. haddaadan waqtigii salaada bilow ilaa dhammaad aadan firaaqa u helaynin 2 mid wey. inay tahay wax marmara iyo inay tahay wax joogta. haddii ay marmar tahay dhib ma laho salaada ka dambayso casar ama tii ka horeysay oo duhur iyo maqrib iyo cisha waa israacin kartaa. xadiidka ibn Cabbaas baana saaha nabigu muxuu saa u yeelay markii la yiri muxuu ka dan lahaa salaadu isagoo Madiina joogan roob jirin jamciyay araada an la yuharrija ummata madisay cidiri dareemin oo marmar duruuftii qabsata salaada la dib dhigi karaa ma la hormari karo tilmaamay. hadday joogta noqoto qofku 2 xaalad mid buu noqonayaa. qof awooda inuu baxo oo tukado ama meeshaba ku dhex tukado, dee salaada uu tukanayaa, gudaha ku tukaya iyo banaanka ku tukayaaba. qof ay ka soo gaaraysa dhibaato intaa ka badan oo ka baqaya sida uu yahay ee uu u fadhiyo u tukanayaa. saasayna taabiciinta ay ma badan yeeli jireen xilligii umawiyiinta gaar ahaan marwaaniyiinta xilligoodii
salaada waqtigeedii la dili jiray nin baa khudbaynaya iska hadlaya salaadii waqtigeedii dhammaanaya ninkii isdhaqaajiye hadal yidhaahdana qortaa loo dheeraynaya loo casaynaya xajooyinka cudurrada iyo culeysyada waqti dhow bilaabanin taabiciinta rag badan waxay leeyihiin salaatul khawf oo kaleeto ama salaatul musaafir oo kaleeto annagoo fadhfadhina baan madaxa ka tukan jirray oo ka rukuuci jirray oo ka sujuudi jirray waxayna ahayd sababihii cabdiqaadir uu diiday waagii hore inaan salaada jamaacadu hadday ku dhaafto aan jamaaca labaad la tukan jirin oo mucaarad baatiin baa la isdhihi jiray ninku keligii inuu iska tukadiyo inuu iska cararo oo guriga ku tukaday ahaa jirtay marar badan marka nuxurku hadda waqtiga uun ka soo gaari kartana markaa soo baxdaba tuko haddaadan kaba soo gaari karin oy marmar tahayna waad israacin kartaa haddayna marmar ahayd ay joogto tahayna haddaad barnaan ku tukan kartana ku tuko haddii ay dhib ka weyn kaa soo gaarayana baabu salaati alkhawfi baa ku banaanaan intaa wixii ka badan culimmada meesha idinla joogta duruuftiinana hoos og baa xaaladahan gaarkaa qiimeyn karta bilahi towfiiq